kulan ballaaran oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ayay soo qabanqaabiyeen wafdiga uu horkacayay wasiirka wasaaradda madaxtooyadu halkaasi oo lagaga hadlayay arrimaha nabadgelyada iyadoona ay ka soo qayb galeen waxgaradka cuqaasha salaadiinta iyo waliba oday dhaqameedka ku dhaqan deegaanka Laascaanood iyadoona si weyn loogu faaqiday shaqooyinkii ka dhacay koonfurta gobolka Sool iyo sidii loo soo afjari lahaa colaadda in muddo ka taagnayd halkaasi waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay mas'uuliyiinta ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo isagu ku nuuxsaday baahida nabadgelyadu loo qabo ee waliba bidda dadka ku dhaqan gobolka Sool gaar ahaan koonfurta Sool walaalaha colaadda dirirta aadka u fooshaxum sidii loo joojin lahaa waxa sidoo kale ka hadlay wasiirada madaxtooyada gaashaandhiga iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbi xaakimka kulmiye mudane Maxamed Kaahin waxaana dhammaantood si isku mid ah ay uga hadleen sidii loo arkin lahaa nabadgelyada isla markaana loo soo afjari lahaa colaadda muddada beelaha walaalaha iyo ehelkaba halkaasi ku dhaxmartay iyadoona ay dhankooda cuqaasha iyo waxgaradku ka soo jeediyeen karay ahaan sidii loo xakameyn karo amaba loo joojin karo dhiigga daadanaya muddaba halkaasi ka socday bulshadina halka kan sheer Laascaanood halka ama reer Sool halka fadhida assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh anagu sidaa la idin sheegay halka kan sidaad u aragtaan waxa maraya xukuumadda Soomaaliland inteedii garbaweynta u ahayd oo ka maqan yahay madaxweynihii jamhuuriyadda halkana ujeedada aanu waa taa la sheegay oo ah shaqaaqadii muddada dheer ka socotay halka kan ee beelaha dhexmarisay muddada sanadka iminka hadeer inteedii dambe mid hore waa jirtay laakiin intan iminka sida joogtada istaba jooga muddada sanadka uga socotay arintaa wax ka qabadkeedii ayaanu nimi waad ogtiina markii horeysay maaha marar badan baanu nimi idinkuna marar badan baad isku daydeen haddana arintaas waynu ognahay halka ay marayso iyo halka ay ku dambeysiyey iyo xaalkeedu inta uu si laba kaclaynayo waxaa laga soo sheegay maalmo dhowto bulshadaas bulshooyinka reeraha isdiraya mar deegaanadooda la tegey oo dad maxay to madaxii ay tageen oo maamulka gobolka iyo qolyo la socda ay tageen inay ku jawaabeen inay u arkaan inaanay iyaguna tala lahayn tolla lahayn dawladna lahayn dareenka laga soo sheegay bulshadaas deegaanka ku nool oo dhibaatadu dhex taala waa dareenkaas waxay muujinaysaa heerka ay marayaan ee quusta ah iyo sida ay dhibaatadaas u saamaysay ee noloshooda iyo dareenada ay qabaan waxaan idin sheegayaa annagu markaa haddaan nahay iyo haddayba dhalinyarada marka horeysa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan filayaa warku isaga waxa la yidhi isagoo aan baalan lahayn isaga iska duula laakiin in la rasmeeyuu ku fiican yahay sidii wasiirka amnigu sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga uu halkay ka sheegay waxaanu sii akidaynaa markii waktigii dheeraaday dhibaatadii sii socotay nafbax fara badan yimid dhaawacii isagu xadnaaf ba noqday waxaan oo laba beelood oo walaala ah oo aan kala maarmi karin markii aanu aragnay oo cod dad isku day waa jiray qolo culamaa diinka niman madax dhaqameed weliba gobollo kale ka yimid baa jiray intaasoo dhimi markii ay keeni weyday natiijadii la rabay ma ay soo bixin waktigii baan qornayn maaha iyaga naftoodan daacad ahayn maaha qofka wanaag sameeyo sacyi sameeye in la xaqiro maaha haddana waxaa ku jira oo hawshii wada culamaa diin u badan gobolkan aynu magaalo madaxdiisii joogno Sool waxaana suurtagala daday raali ka yihiin ay wada shaqayn karaan oo iyaga naftooda culamaa diina in ay ku soo kordhaan waa dhici karta hawshiina weli iyagu ma daalinay
kamana faralaabana weli way wadaan laakiin marxaladan oo kale waxaa loo baahan yahay shacab weynaha sool oo yacni lagu yaqaan inaanu waxa xun qaadan oo uu shacbi xor a yahay waxay looga baahan yahay halkaa hiilka meesha maanta u baahni waa nuqdata ducufka aan sheegnay lana wadoogi oo laga dheragsan yahay waana lagama maarmaan in cid walba intii awooddeeda ay ku xoojiso oo gacan la siiyo cidda sacyiga samaynayso maalin iyo habeen dadka ka shaqaynaya dawladduna sidaas si dheeg waxay u diyaar garowday inay wixii hore haddii aanu keenin natiijadii la rabay maraka nin bisin kale la qabsado wax alla wixii hawshaa kala gudboon oo amniga weliba khaasatan oo amnigu waxaa mas-uulkaa daa'iman xukuumadda markaa dhisan oo dalka jirta amnigii tiina wuu yaqiinsan yahay waa kaa wasiirkii wasiira daakhiligi sidaa u sheegay annaguna mucaawiniin baa nahay haddii allaga ku isaga iyo wasiirka wafdiga hogaaminayo maxamuud xaashiba diyaar waxaanu u naho rag badan baa markaa meesha maraya waxaanu isleedahay cilalka calalaqal yaan la odhan tiradu waa yarayd wax kasta nafcu hala yimaado ninku khayr kasta ha soo kordhiyo laakiin yaan la odhan hagarashaa jirta weli hagarashaa jirta si aan loo odhan waxaanu cadadkiina intii waa laga badiyey ilaa iyo dadkii xataa ciidamada xaggooda ku xeel dheeraa sir baanu u wada fadhino hadda wakti dhow baa yani qolo walba hawsheedii u baneedhay dhinac ugu baydhay waxaan sheegaynaa waxa keliya oo la akidaya waxa weeye tallaabadu hadday tii hore qabow lagu sheegay mid diiran bay dawladdu ku soo faragelinaysaa arrinkaa waxayna ku dadaalaysaa inta kursiga muddadaa kursiga lagu fadhiyo in ay xasanaadkeedii ku korso kasto oo ay buugga u buuxsamo buugga xasanaadku oo ay arrintaa qiirada leh dhibta leh culayska leh carruurta yaryar iyo dadka dibadda jiifa waktigii abaarihii aan khayr ka badnayni mar haddayna heleen oo dadku xaggaa u wada jeedeen in mid xarbi ahliya oo xarbi dagaal sokeeye ahi inuu meesha ka dhaco lama filayn waxaan jecelahay waase muqadar ba wax muqadara weeye maantana waxaynu bisin ka qabsanaynaa inaynu loo zuulin lahaa ceebta sidii loo tirtiri lahaa reer soolna iyagu hormooda ka noqdeen intii ay hore uga odayadii horaa ka warramay ninkii kale halka yimaadaana kolley wax cusub kama sheegayo waxaynu inteynani wada ognahay laba beelood oo gobolkan ka tirsan oo isku degaana in muddo-aba in shaqaaqo iyo colaade ay dhexdooda ka socotay dagaalkani guud ahaanba waa kiiba wuxuu bilaabmay 2004 kan imika u socday ee xoogga ah ee haddii dadka badanina ay ku dhinteenna dee rabadaantan imika waxbaanay naga xigin rabadaanteedii buu bilaabmay waxaynu xog haynaay oo aynu ognahay in dad maxaanku dhahdayey 80 waa 79 dhimashada ay marayso 150 in ka badan oo dhaawicina inay marayso ayaynu ka wada war haynaa xilligan adag ee maanta aynu ku jirno maxaanku dhahdayey dadkii iyo xoolihii ay aada u liitaanna ay colaadani socoto xagga dhaqankeena markaynu dib ugu noqonno colaadaha noocan oo kale ah siyaalaha dee dhaqanka ahee lagu maareeya waxay ahayd way jiri jirtay soomaalida weligeed yaalaheedba inay dadku isdilaan laba reer hadday isdilaanna xigtada ku xigta ayaa gacanta ka qaban jirtay culimadaa kici jirtay maamulka xukuumadeed ee markaa jiraana gacan buu saari jiray waxaynu ognahay dadaal fara badan in la sameeyey waxaynu ognahay maxaanku dhahdayey in dhexgal fara badan la sameeyey waxaynu ognahay odayaasha garaadada iyo cuqaasha deegaankan gobolka sool inay qeyb weyn maxaanku dhahday ay galeen
waxaynu ognahay in hadda oo ugu dambeysa odayaal badan inay galbeed ka yimaadeen waxaynu ognahay in hadda u dambeysa culimada gobolku inay gacanta ku hayaan ayagana xalana halkan isku wareysanay kolle fikiro kale oo ay culimo kale dalka intiisa kale uga ay ka wada hadleenna way noo sheegeen waxay ila tahay arrintaasi markay halkaa marayso inteena kale oo maamulka xukuumadda uu ugu horeeyo waxa ina farani waxa weeye in aynu arrintaa culays saaro halka ay iminka marayso inaanay dib u dhaafin hubkan casriga ah ee laga yaabo xabad waliba halkanaynu fadhinayo afarteed meel goosanaysa ee cahdigan dambe lagu dagaalamayo ee dowladaha waaweyn ay ku dagaalamayaan ayaa laga yaabaa wiigii 10 casho maxaan ku dhahdaa 2 bilood 3 bilood inaanu gaadhin khasaaruhu intuu iminka halkan uu marayo waxay la tahay waxa xaqiiqa inaan labada beelood oo muddo doorana la dhaardaariyay dadaalka xakamaynta colaadda iyo in la soo hojiyo nabadda labada beelood inaan dadaalkaasi aanu maxaan ku dhahdaa midho dhal ahayn waxaa lagama maarmaana markaa dadka intiisa kale inaynu isugu tagno labadeena beelood ee qayaad iyo bahar rarsame in aynu heshiiskooda ka horraysiino horta in colaadda la xakameeyo heshiisna dib ugu soo dabaalo barnaamijkaasna aynu meel adag dhigno culimadii xalinta waanu iswaraysanay ciidankii taliskii ciidanka ee gobolkan joogay iyo nawaaxigiisana waanu iswaraysanay taliyihii guud ee ciidankuna wuu nala socday caqli kasta iyo fikir kasta iyo talo kasta markaa waxa ay odhanaysaa in xoog iyo culays la saaro arrintaasi inaanay dib aanay u dhicin wasiirka daakhilku sidii uu sheegay maanta waan soo wareegnay dhumay baanu tagnay dabataag kala baydh intaba waanu soo marnay xaaladda dee abaarta idinkuba dee degaankiibaa ka mid tihiino waa qiyaasi karaysaan waayeelkii waanu la hadalayo dadkii nabadda diyaar baanu nahay way yidhaahdeen laakiin yuhuun urursan oo talo leh oo cid talada gacanta ku haysa oo meelaha ay wada degan yihiin xitaa tala ku urursan tahay meelaha kalena ay ka urursan tahay maanaa soo marin sidaa laajligeed culimada iyo odayada sharafta leh ee halkan fadhida dee xil baa ina saaran xukuumadda xil baa saaran dadaal fara badan waa la sameeyey xooggii wax lagu xakamayn lahaaye ciidamadana waa la sameeyey arrintii may dhammaanin mar walbana markaa tala taalla mas-uuliyad ummadeed baa ina saaran mid diimeed baa ina saaran mid maxaanku dhahdaye degaan baa ina saaran markaa waxaa la istusay in arrintaa la isticmaalo awoodda ugu badan ee lagu afjari karo lagu hojin karo lagu xakamayn karo arrintaa maxaanku dhahay xasan faarax telefishinka qaranka magaalada laascaanood